السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وأسد آدم فراي. walaalyaal maanta waxaan rabaa inaan idinla hadlo aan idinkala hadlo wax niyadeyda ka gooxayo aan is iri ugu yaraan haddii ay 100 qofood oo Soomaaliya oo caafimaad qabta ay dhigeystaan wax weyn bay ka taraysaa dalkeena iyo wacyiga dhalinyarta Soomaaliyeed. horta ka raali ahaada in fargeetadan aan indhaha idinka gelinay aad arkaysaan waan gaajoonahay marka qofkan haday gaajahayso waxa ma sheegi karo soo marka waxaan ku talagalay inaan intaas yartaa soo liqo markaysaan intaas yarta ayaan soo liqayaa haddaad Sweden joogtid baashan waa pizza yar waxay ka samaysan tahay maxay ahato qudaar ayay ka samaysan tahay marka Williskaad ka helaysaa dukaanka ama Willis ayaad ka heli kartaa haddii aad tahay qof dhalinyaro iskaabula dabcan haddii xaas ku joogtid waxaan uma baahnin laakiin haddii sida anigoo kale xaaskay ka maqan tahay marka wax weyn bay ka taraysaa soo marka intaas yartaan soo liqayaa hadduu Ilaahay yiraahdo kadibna واسكو سو نقونينا waxaan rabaa inaan idin kala hadlo wax niyadeyda ka gooxay kan raali ahaada intii raan idin ka maqanahay laakiin ma ahaanayso wax sikin ka badan sikin kama badnayn manigan soo noqday mar rabo clipkan inuu dheeraado waxaan rabaa inaan marka aan ka afeefto anigu siyaasi may siyaasadna shaqo ku mali siyaasadna maanta uma socdo laakiin marka aad aragtid asad oo ka hadlaya macnaha siyaasadda Soomaaliya iyo nolosha Soomaaliya waxaan la damqanayaa dadka Soomaaliyeed iyo walaalaha Soomaaliyeed ee aan dhiiga iyo isirka aan wadaagno ayaan la damqanayaa iyo nolosha ay ku jiraan dacana Yurub baan joogaa waxba iga ma haleysna nolol waa heystaa shaqo waa heystaa ubadkayga Yurub ay ii joogaan alxamdulillah ma fahamtay waa haddii dhinaca shakhsiyadeyda loo fiiriyo laakiin sariirta ma u hurdo sidii nin faraxsan because of waddankaygii baa dhibaato ka jirta soo marka taas waxay ugu kalifaysaa marka inaan mar waliba aan ka fikiro wax waddankeena ka socda anigoo aad uga damqanaya duruufaha social media maalin walba la soo dhigaya aan ka arkayana qalbigay aad iga huriyaan marka wax walba oo sidaa oo kala markaan arkana bal laga yaabo haddaad clip duubtid in 100 qofood oo Soomaaliya haday daawadaan konton uu qalbigooda bedelay bal iska doob waxa adiga qof Soomaali ahaan ama shakhsi dhalinyar Soomaali ahaan niyadda ku jirana dabcan waxa laga yaabaa dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed inay niyaddooda ku jirto oo ay dareenka adigu aad qabtidna ay qabaan dhalinyaro fara badan oo dalkoodii iska ilaabayna way jiraan markii ay qurbaha yimaadeen aniga muwaadin Soomaaliyeed baan ahay waxaan dareemayaa mar walba inaan Soomaali ahay meel aan Soomaali ahayna comfortable kuma dareemayo kuma raaxaysanayo waxaan ku raaxaystaa Soomaaliya Muqdisho oo maanta waa Stockholm anigu Sweden baan deganahay Muqdisho marka Stockholm dhaxmarayo niyadeydu kuma raaxaysato indhahayguna kuma raaxaystaan quruxda Stockholm laakiin qalbigayga wuxuu aada Muqdisho iyo marka aan gobolka aan aniga jooga aan imaadana gobolka aan ku noolahay marka aan fiiriyo iyo nolosha taala iyo sida ay dadku nolol u haystaan waxaan ku fikiraa gobolkii anigu aan ka yimid oo Baydhabo inay sida u ekaato soo marka mar waliba marka korkayga wuxuu joogaa Yurub joogaa laakiin qalbigayga Soomaaliya joogaa haddii qof waliba dareenka noocaas uu qabayna waxa meesha ka bixi lahayd canaasirtan anaga isku kay adeegsanaysa oo raba qalbigeena inay xumaan isu geliyaan laakiin dadka Soomaaliyeed ma wada xuma dad Soomaaliyeed oo aad wanaagsan baa jira dad aniga iga wanaagsan way jiraan dad badan oo ka xishoonaya kaamirada inay hor yimaadaan laakiin dareemayo waxa aan dareemayo wax ka xanuun badanna way jiraan walaalayaal waddankeena annaga iskale annaga Soomaali baan iska ilow waxaan la yiraahdo beel iyo qabiil iyo waxaan walaal iska ilow su'aal baan ku weydiinaya weliga qabiilka wax ma ku tareen waa maya walaal yaa akhay anuguna weligay qabiilkayga wax ima tarin qof uu qabiilkiis wax tarayna ma jirto qabiilka faa'iido wuu leeyahay laakiin yaa ka faa'iideysta ama dhadhanka qabiilka yaa qaata yaa sakuno 1 milyan oo dad qabiilka maanta waxa ku dul nool qabiilkaas oo ku dul nool oo ku qaraabta oo nolol ku sameystay oo caruurtooda dibadaha ka geystay oo guriyo waaweyn oo qasriya dibadda uga dhistay oo ku nool waa dadka siyaasiyiinta adiga iyo aniga marna dan noogu ma jirto qabyaalad aniga adiga waxa dan noogu jirta Soomaalinimo ama joog ma taqaan Hargeysa ama Boosaaso joog ama Muqdisho joog ama Baydhabo joog ani adiga waxay dan noogu jirta Soomaalinimo laakiin maxaa dhaco aniga adeerkay
marba wuxuu ii sheegaa adeeradayde waa taqaana kuwa siyaasadii igu jira waxay mararka qaarkood ii sheegaan inaan anaga dulman nahay oo ay tahay xilligii aan dulmiga ka bixi lahayn yaana dulmiyey Soomaali baana dulmisay yaa way Soomaalidana dulmisay waa reerkaas adigana adeerka wuxuu ku sheegaa inay Soomaali ku dulmisay oo aad dulmana tahay xilligii aad madaxaaga kor u qaadi lahaydna la joogo si aad u noolaatid laakiin xaqiiqadu taas ma noolaanaysidee baahi baad u dhimanaysaa iyo abaar iyo daawo dhacday warka xaqiiqadiisuna waa kaas taban adna daahka ma saarna mahmaha waxa jirta maaymaaya ho tirada uu idha oo tagalay macnaha uu idha anna duurkan galaya doqona iska dhigaya wax shaqeynayana ma umada Soomaaliyeed kuma noolaan karto uu idha oo tagalay ya marka qabyaaladu waxbay ka hadlaynaysaa waxba kuma hagaajinayso halkaas aan uga baxaya qodobka labaad clipkan inaan duubo waxa igu dhaliyay nin la yiraahdo Shariir Tharoor oo Hindi asalkiisu yahay Hindiya laga soo qaatay awowgiis oo ciidamadii Ingiriisku isticmaalayeen ay soo qaateen oo Hindi la keenay ciidan laga dhigtay kadibna aabihiis Ingiriisku ku dhashay kadibna isaga Ingiriisku ku dhashay ayaa wuxuu qoray oo ka hadlay Inglorious Empire buugaas wuxuu kaga hadlayaa markaa buuga waxa la yiraahdaa Inglorious Empire buuga waa kana waxa ku qoran dabcan haddaad si fiican u arkaysid Shariir Tharoor baa la yiraahdaa waxa ku qoran Inglorious Empire meeshan waxa kaga qoran ma taqaanaa inta waxa kaga qoran what the British did to India markaysa what the British did to India so marka dadkan baaba ayaa aad u jeedid waa dadkii Hindida ahaa ee uu baabi'iyay ma taqaanaa Ingiriiska laakiin walaal buugan marka aan akhriyay sheeko ma dhamaynin runtii laakiin inta aan ku guda jiray ma dhamaynin runtii buugan akhrintiisa laakiin inta aan ku guda jiray waxyaabo fara badan oo waxaan arkay ummadda Soomaaliyeed maanta ay ku sugan tahay oo ay ku sameynayaan waxaan beesha caalamka iyo ciidamada AMISOM iyo midowga Afrika iyo waxaan loo bixiyay iyo wax Soomaaliya iyo buugan marka aad akhrinaysid arimaha qaar oo aad ku dhex arkaysid waa wax aad iyo aad isugu waxaan sidoo kale intaas ku kabaya sheeko waxa jirta internetka aad ka helaysaan haddaad Google garaysaan waad helaysaan la yiraahdo the $5 smile $5 qofay ka qoslisay $5 baa ka qoslinaysa sheekadaasi inteeda badan waxay ku socotaa iyadana dadka la laalusha ama $5 ay ka qosliso ujeedadeeda haddaad fahmaysaanna dadka Soomaalida oo intay ama Arab lacag ka soo qaataan ama Kenyaati lacag ka soo qaataan ama Ethiopian danahooda u shaqeynaya ama dana reer galbeed wada oo ummadaas islaamka raba inay ku dhex fuliyaan ayay si un xidhiidh ula leedahay marka dhalinyarta Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmi lahaa buugaagta historyga akhriya waliba buugaagta wadamada dhibaatada ku dhacday laga qoro akhriya war si aad wacyigeena u kordhisaan war iska daaya Facebookan iyo YouTubekan gabdhahan inta baridooda la idin soo duubo maalin walba aad daawanaysaan 2 saacadood 3 saacadood aad ku luminaysaan war wadankiina baabaayo aqliga xaqooydan ka maray war aanu u fikirno sidii bini aadamka waxaanu joognaa xilligii aanu fikirinahay waxaanu joognaa xilligii dhalinyarta Soomaaliyeed ay wax ka bedeli lahaayeen hab nololeedka Soomaalidu inay wax ka bedelaan ayaa la joogaa maxaa diiday inaan gacmaha isqabsano maxaa diiday inaan isku tanaasulno maxaa diiday inaan maatadeena iyo marasteena aan ka naxno maxaa diiday waxyaabaha la isku mari waayay haddaynan wadanka aysan dhibaato weyn u keenaynin in qof loo daayo si aan noloshan uga baxno alaysa minkum rajulan rashid qof adkaysi la raganimo la idin kuma jiro siyaasiyiintan la hadlaya uma adkaysan kartid miya haddii kursiga wax yar lagaaga adkaado waxaad hurinaysaa qabyaalad iyo qurun war madaxweyne ka soo bilow farmaajo ka soo bilow lafta gareen ku xiji dani ku xiji musabixi ku xiji wat kulli isku dar daraheeni kama shaqeynayaan waa afka baarkiis waay sababtaan kula heeban ku sheegaya haddaad maanta Somaliland joogto ama Muqdisho joogtid nolosha aad haysataay haddii aad khiyaaliga ka baxdid maxay tahay nolosha aad haysataay maxay tahay musqulihiin idinka xaarka ka qaato ma taqaanaa waxaad u dhaadhicisaan booyadaad u dhaadhicisaan biyaha waydan ka go'aan oo biyo ma haysataan
maalin walba dushiina lagu murmaayo biyaan gelinaynaa iyo waan soo wadnaadaasaa laydinku haya muqdisho kuwa jooga nidaam baan idin samaynaynaa baa laydin leeyahay maalin walba waddooyinkaa laydinka xiraya waa laydin dhibaataynaya idinkuna maalin walba shirbeelaadyaad qabataan maxaad ku zaa'idisaan waxba kuma zaa'idisaan ma garanaysaan meesha laydinka jiro soomaali meesha laga jiro ma garanayso soomaali meesha laga jiro ma garanayso war caqligiina iyo wacyigiina intaad ballaarisaan war qaab soomaalinimaha u fikira cudur fardaha kaa galay dameerada lagama gubo cudur dameera kaa galay farda lagama gubo miyay ahayd mahmaha sidaasaa jirtay war wax la xallin karo hal sano lagu xallin karo inay nagu qaadato 30 sano waxaa keenaya caqligeena fooraraa keenaya aqoon-yahanadan dabada laga wato oo software aanan iyagu lahayn lagu soo shubay ayaa raba inay waddankaasi ay baabi'iyaan ummadan Soomaaliyeed quruxda badan ee qiimaha leh oo aanan istaahilin nolosha ay maanta ku jiraan inay sidaa u noolaadaan waxyaabaha aan ka yaabo waxaa ka mid ah reer galbeed oo is-heesta oo la dhexdhexaadinayo oo Afrikaan ama Carab ay dhexdhexaadinayso weligiina ma aragtay ma arkaysaa way Afrikaan maalin walba la dhexdhexaadinayo maxay tahay problemkan muxuu yahay xaguu ka yimid caqligii baa zuulay hadduu caqliga zuulana nolol ma jirayso heer waxaan gaarnay kuwa PhD holder isku sheegay intay waddankeena yimaadaan iyagoo mabaadi gaala wata yiraahdo maxay ahaato hal la mariyo baarlamaanka hal la mariyo yiraahdo oo qowmuluudnimo hal la mariyo baarlamaanka yiraahdo iyo kuwa yiraahdo American oo naga aqoon badan baa diintii iyo dastuurkii kala saaray yiraahdo iyo macnaha war waxaanu sidan nolol lagu ma dhaqay نبي الله محمد عليه السلام وحي با كسو دغي جيرين لكن وحي كدنبي وحي مسو دغي جيرين ابو بكر يا عثمان يا علي بن ابي طالب يا معناها صحابتاس وحي wax ku wadeen waxay ahayd diintii ilaahay bay wax ku wadeen diintan waxay horumarkan gaartay nabi maxamed geeridiisa kadib bay gaartay PhD holderna ma ahayn laakiin dad qiyam labay ahaayeen dad yaqaan qiimaha bini aadamku uu leeyahay bay ahaayeen aqoonyahanka hadduu garan waayo aqoonyahanka garanaynin dadnimadiisa iyo fitrada rabbaaniga ah uu ilaahay siiyay garanaynin ka aqoonyahan maaha waddankeenana ma istaahilo inuu maamulo talo inuu ku darsadana xaq uma balaba that's my perspective wa aragtidayda weeyaan caqliga wax laga hogaamiyo qalin iyo buug wax lagama hogaamiyo wixii aad iskuulaadka ku soo baran jirteen weligiina kuma idan shaqaysan لكن عقلي بي إذن كردسي اسكولكو عقليغا كو بلادا wax laga ma barto wax laga bartaa fitrada ilaahay uu ku siiyay iyo adigoo dadnimadaada la soo noqda wax lagu bartaa haddaba ujeedada aan u jeedaan idin sheego waxa la damacsan yahay ummadani Soomaaliyeed ee boqolkiiba boqol islaamka ah in lagu duulo ama duulimaad lagu yahay islaamnimadooda ayaa ugu horeysa waxyaabaha la doonayo in dalkeena ma taqaanaa laga wado waxaana dhibaato waxay noogu dhacayaan waxa weey ilaahay ba fariin noo soo farayo wuxuu leeyahay war waxaana dhibaato waxay idin ku dhacayaan waxa weey waa badbaadadiina isdaba qabta hadday kuwan maanta ina xukumayo sida ay wax u rabaan ay wax u socdaan Soomaali hog bay ku dhici doontaa isdaba qabta dhibaatooyinkan yar ku samra laakiin caqligiina iyo wacyigiina soo celiya oo waddankiina badbaadsada iyo diintiina iyo dhaqankiina iyo Soomaalinimadiina waa fariin xagga Rabbi nooga imanayso laakiin aan garan laanahay waddankan anaga iskale 55 jir ama 65 jir maanta nool 70 sano hadda kadib ma noolaanayo laakiin waddankaas waxa iskale wiilkayga iyo wiilkaaga gabadhayda iyo gabadhaada ma waxaan u daynayoon kaga aamusnaa marka kuwa aan u jeedno 200 sano hadda kadib in ubadka Soomaaliyeed ee dadkan sharafta iyo ciziga iyo mataqaana waraaga mudan inay 200 sano hadda kadib kuwa maanta faragelin ku haya Soomaaliya iyagoo noo soo marayo siyaasiyiintan oo dhuunta laga raacay oo mataqaana aan idin soo sheegay $5 smile-ka laga soo raacay in ubadkeena annaga aan dhalnay 200 sano kadib lagu hogaamiyo ubadka ninka westernka uu dhalay maanta mabaadiida hadda uu qoray in ubadkeena 200 sano kadib ubadkooda ay ku hogaamiyaan taas miyana raalli ka noqon karnaa Ilaahay baan idin ku dhaariyay waxbaan isku tartaray inaadan fahmin baa laga yaabaa laakiin waxaan ka wadaa waxaan beesha caalamka lagu leeyahay Soomaaliya dhooban meeqa sano ay joogaan waxay Soomaaliya ka qabtaan ma aragteen waxba may nabadu
waxaasoo kuturkutayn iyo been ah la geliyey aysan ku imaanaynin 6 bilood anigu muqdishoan joogay ee maxaakiimtii say muqdisho ka dhigeen yaa caawinay xagee taakulayn ka helayeen xagee ka helayeen saxsanaantooda kama hadlayo laakiin 6 bilood cidina ma taakulaynaynin laakiin bulshadii oo dhan bay isku xireen walow hoosta lagaga jiray waxyaabo badan markii dambe ay qarxeen way danihii baa soo baxay Soomaaliyana hadda waxa ka socda waxan beesha caalamka leeyahay leeyahay xalana iska xirtay oo de wadankiiba dhinaca ka maamulaya dabcan qaybtan hadda aad daawanaysid qayb intii hadda aad soo daawatay waxaan duubay 3 maalin ka hor tanna waxaan duubayaa haddeertan aad daawanaysid 3 maalin kadib sababtuna waxa weeyaan maalintii kaamirada iga dantay mana aqaano sheekada meel ay ii mareysay laakiin waxaan rajaynayaa maadaama hadal haafa aan idin kaga tagay waxay la noqon weydin aan haafka ku daayay laakiin waxaan qiyaasayaa marka aan dhigaystay codkii hore inaan ka hadlayay waxaan la yiraahdo maxay ahayd beesha caalamka oo xalana fariistay oo wadankeena daraha ay kala yihiin aanan cidina maalin noo sheegin laakiin dawlad kale inay dalkeenu ka dhisan tahay waa wax iska cad haddaba walaalayaal dalka anaga leh hadalka waan soo koobiyaa dalka anaga leh Soomaaliya anaga leh waan wada leenahay way naga dhaxaysaa Soomaaliya wanaageeda anagu noo yaala xumaanteedana anaga inoo taala imagine qofka Soomaaliya maanta awoodaha dunida markii la eego ama siyaasadda dunida markii la eego dawladda caalamka ugu awoodda badan dawladda caalamka maanta ugu awoodda badan waa Mareykanka gabadhii Soomaaliyeed ee Mareykanka ka noqotay xildhibaanada waxa uu madaxweynaha Mareykanka uu ku caayay waad garanaysaan oo uu yiri waxay ka timid wadan burburay wadankeeda horta waxa uu tarto qof walba oo Soomaaliya meeshu asiga asalkiisa uu ka yimid ayaa wadankiisa halkaas uu leeyahay man horayo waxaan idin dhihi lahaayeen sheekadan ku soo koobaya walaalayaal qofna gurigaaga ku hagaajin maayo qof gurigaaga intuu kugu yimaado ku qurxinayo sariirta ku goglayo guriga ku tirtirayo oo isaga ka tagayo bilaadan ma jirto suuragalna maaha wax dhici karana maaha marka waxaan idin leeyahay dalka anaga iska leh Soomaali walaala oo midaysan oo is ogol oo hal dawlad ay u talinayso hal system oo cadaalad leh ku hoos nool ayaa ka qiimo badan waxan qolo waliba meel inta lagu xirtay dhigta loogu sheegayo in ma taqaanaa in qolo kale oo Soomaaliya ay ku duushay oo ay dhibaataysay Soomaaliya way is dhibaataysay ma diidayno doqonnimadan leh waxba nalagu sameeyaydan aan waxba la iloobayn doqonta gocosho badan laakiin qofka ragga ah ama ummadda caqliga leh waa ummadda ilowda wixii soo maray walaalayaal iska ilaaba aniga waxaan rabaa inaan leeda page ku raaxaysto aan ku raaxaysto maxay ahaato ishak meeshii oo badda iyo webiga iska galayeen meel aan aad u jeclahay baa jirta meesha Soomaali markaan tago vlog baan ka soo sameyn doonaa waan soo booqan doonaa meeshii webiga iyo badda iska galayeen ii sheega ما أقانو يمشي كرتان كاميرا اللي واحد كدوباي سوري إن واحد اللي يرادا إن السومال لان قصة الحيصة ده ما سيدنا نقول ما يسنين عمرجين أنا ويلكي دولة دي ما بارك دولة دي يوروبان كواركي ويلكي جرا مسانو كل ما يسنين نرشة مع عقلي جين سيدنا ونتصي وين نفكر وإنه فكرنا حل جان فكر الهم بالجاري ودن كانوا عدسان كرنا ستوكهولم نيويورك يا باريس يا دبي وكله أيام كله كرنا سدح شيء بانو باهنا إن ضدك وعي جودا دسنا dhibaatadii dhacday aan ilowsiino برنامج مهم تلفزيون عالمي متقنا إن أبالمرينو ما شاء الله تدكو كم مشغولين إن سمينو سيد بريتش تالنتي وقت تالنتي وحنا أدو جدا عرورتي يدك جوريها ستريس وكل علها ولا مدلين وح مهمة يو باشال يو الدنيا يو سبورتس يو متقنا تشامبيون ليج يو الليغا يو بلاي يداوضان ورد الله يرتي يوروبيان كلو قلت لك وحنا يكون راح يستانو يداوضان أفريكان صومالي وجوهريس أفري لا تنسى ما أنت بلوري محلي ركوح ذا شيء يا بدي تشامبيون كي قاضي ما قد بعوضة أرسنال لهاي ليفربول ولا جبدي ميزي لقطه كجبي إن منطقة إن أوزيل بمرخ بودي وروحت بعد كشة كيني صار محايدا كجلي ده كان يوروبيان لو قلت لك عليه هوشاس واحد ذيك شغلات كل هذا الملك ومطة هذه باباهن وبابا إيسا فاهم إيسا أرسنال يا مانشستر يا نيو تشيلسي ماله والبركة كشة كيني صار يا رب تاين وطن كاسر إيشو اللي وطن والب وطن كويس قريس كليب اللي نلشو وقريس كليب قريس كليب هذه ما أنت سيدنا هداتها وطن كاس يا مامولا يا مركان رولا ليال عقلك يوعيك القرآن وقان ودن كينا أن لسنه أمة شرف له عزي يوم تقانا احترام عالم ككلا أن نقولنا أدي أدبان إذن سلام يا مرة بإن هذا الإنتان كبدن أن يرادو وحيا وفر بدن بمرة كدم بس مسكح لي ذيك السوق وحي إن أنا هذا لوان ربع لكن وقتك ومهم وقتك إن أنا مرة بين أنكو عياره أدي أدبان مه سنتين وأنا إذن سلام يا أنا قلفتك وأنا إذن كحيقي وحنوبها هنا هنا نبيع عبو مركا خير الكلام ما قل ودل نبتقليو سوماليا هانولاتو peace